السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسنا من بخيارتا وذا نقل السعوتاي ميل كستا يوغوب كستا ادكسو كنتيهين با داوض يالكسو دوادا برامج كيني حيسا قاركا حنبارسانا ورقسيدو وحي قرآن برامج كآلا وحين كسو قادنا قرموين كي دابعان شبكدا كسو بحا مقالة هرقيسا يا عالم كينتي سكالة برامج كسي توسا وحيني كاقا إيمانا يا تلفيشا كقرنكا جمهورية السومالان برامج كآلا وحين لسعود سيسا وصصارا كانيقو مبروك على عمر haddii aan soo qaadano qormadeena ugu horeysay barnaamijkeena wargeysyadu waxay qoraan toddobaadkan qarash intee leeg ayaa kaga baxa dawladda Mareykanka dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo wadamada ka socdo xubintaadka xiisaha badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska Himilo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa wuxuuna ku bilaabay sida tan dawladda Mareykanku waxay dagaal kula jirtaa ururada argagixisada tan iyo sanadkii 2010 ilaa iyo haatan dagaalkaasi ayaa ku kala baahsan 67 dal waxaanu noqday kharashkii dawladda Mareykanka ka baxay tan iyo xilligaasi ay bilowday dagaalkaasi ilaa iyo hadda 6.5 trilyan oo dollar waxaana arrintaasi lagu cadeeyay daraasad la soo bandhigay toddobaadkan daraasadan oo ay soo bandhigeen koox ka tirsan macadka Western Institute for International Affairs ee dalkaasi Mareykanka ee arrimaha xiriirka caalamiga ayaa waxa baahisay majalada The National ee ka soo baxda dalkaasi oo wargeyska Himilo ka soo xigtay daraasadaas ayaa lagu cadeeyay kharashka dawladda Mareykanku ku bixinayso la dagaalanka argagixisadu ay kor u sii qaadayso danta guud ee dalkaasi Mareykankana qiimo dhan 8 trilyan tan iyo sanadka 2050 wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay inay dawladda Mareykanku ku bixisay la dagaalanka argagixisada ee dalalka bariga dhexe oo kaliya lacag dhan 7 trilyan oo dollar sidoo kale daraasadan ayaa cadeysay in tirada dalalka ay ka taagan yihiin ama bas ay ka jiraan ururada lagu tilmaamo argagixisada ay tiradoodu dhan tahay 67 dal tiradaasi ayaa waxa ay u dhigantaa in boqolkiiba 9 dalalka ka jira caalamka ay ka dhisan yihiin ururadaasi dagaalkaasi lagula jiro ururada lagu tilmaamo argagixisada ayaa waxa ay sababeen in magaalooyin dhisnaa ay dambaska noqdaan sida ay daraasadani sheegayso isla markaasina ay dad aad u tiro badan ku barakacaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee dawladda Mareykanku ay ka wado dalka Afghanistan ayaa ah dagaalkii ugu dheeraa ugu badnaa ee dawladda Mareykanku ay gasho waana arinta ay daraasadaasi cadeysay waa tahay daawadayaal waxaan filayaa qormadaadka xiisaha badan leh inaad ka wada hesheen qormadeena xigtay barnaamijkeena wargeysadu waxay qoraan toddobaadkan haddii aan soo qaadano 10 nin ee loo aqoonsaday ragga ugu dhalmada badan ee dunida caruurta ay dhaleen iyo haweenka ay guursadeen xubintaadka xiisaha badan ee la yaabka badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska Foore ee ka soo baxa magaalada Hargeysa wuxuuna ku bilaabay sida tan shaki kuma jiro in quruxda qoyska iyo lamaanuhu ay tahay ubadka ay dhalaan waxaase taasi dareemi kara buu yiri wargeysku qoyska aan lahayn ubad ay ku indhadoogsadaan waana xikmad rabbaani ah oo si aadamuhu adduunka u camiro Ilaahay ugu talagalay in ay lamaanaha nolosha wadaaga ubad helaan halka uu inta uu doonana ubad la'aan ka dhigo haddaba aynu soo qaadana mid kamid ah raggii ugu dhalmada badnaa dunida ee taariikhda dunida lagu xusay Ramsiiskii labaad oo kamid ahaa faraaciintii reer Masar waxa uu noolaa 3,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga sida ay taariikhyahanadu sheegeen waxa uu dhalay in ka badan 100 wiil muddadii uu noolaa oo ahayd 90 sanadood waxa mucjisa in 90 ka sano ee uu noolaaba uu dhalayay waxa uu ubad dhalayna ay wada ahaayeen rag tiradoodu ay dhan tahay 100 wiil ninka labaad ee ku soo xigayna waxa uu ahaa Nayduru
nayduru waa mid ka mid a ragga ubadka ugu badan dhalay taariikhda waxaana uu dhashay waddanka Zimbabwe ee qaaradda Afrika ku yaala oo uu imika ku nool yahay da'diisuna waa 61 jir waxa uu guursaday in ka badan 15 haweena waxaanay u dhaleen in ka badan 128 ubada oo gabdho iyo wiilal isugu jira inkasta oo uu jeclaa in uu ubad badan sii dhalo oo uu haween kala guursado waxa uu sheegay in dhaqaale xumo darteed uu u joojiyay guurkii badnaa balse uu soo celin doono guursiga badan marka xaaladiisa dhaqaale ay saamaxdo. Chakin Gongo waa nin guursaday in ka badan 20 haween ah kuwaasi oo uu dhalay ubad tiradoodu kor u dhaaftay 158 caruur. Chak waxa uu geeriyooday sanadkii 2012 isagoo waqtigaasi da'diisu ahayd 103 jir. ilmihiisa ugu weyni waxa uu jiraa 60 sanadood waana nin oday ah halka ilmihiisa ugu yar ay jirto 18 sanadood waana gabadh. Antitius Akuku ninkan lagu magacaabo Master Akuku waxa uu guursaday 100 haween ah waxaana furay 30 kamid ah haweenkaasi waxay u dhaleen ubad ka badan 160 ubad ah markii ugu horeysay taariikhda waxa uu guursaday sanadkii 1939 haween lagu magacaabi jiray Diana halka sanadkii ugu dambeeyay ee uu guursaday sanadkii 92 oo uu guursaday haween lagu magacaabo Joseph. Akuku waxa uu geeriyooday sanadkii 2010 waxaana ku noolaa deegaan u dhow magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya mar wax laga weydiiyay intii uu noolaa caafimaadkiisa wanaagsan iyo awoodda Ilaahay siiyay ee dhinaca taranka waxa uu sheegay in ay ahayd cuntada uu quuto oo ahayd mid caafimaadka u wanaagsan oo ah cuntooyinka wadaniga sida qaalibka ahna aanu cuni jirin cuntooyinka dufanku ku badan yahay iyo cabitaanada warshadaysan iyo cuntooyinka suugada leh. waa tahay daawadayaal waxaan filayaa qormadaadka xiisaha badan leh inaad ka wada hesheen weli bartanka waxaynu kaga jirnaa barnaamijkani wargeysadu waxay qoraan toddobaadkan Twitterka oo diiday inuu tiro bogga madaxweyne Trump bal xubintaadka xiisaha badan ee la yaabka badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska sahan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa wuxuuna ku bilaabay sida tan bartaha Twitterka shirkadda Twitterka oo diiday in ay masaxdo amaba ay xanibto bogga uu shirkadaasi ku leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maqaalkaasi waxa lagu qoray bogga mahadooyinka dunida ee wargeyska sahan cadalkiisii soo baxay maalintii Arbacadii ee taariikhdu ahayd 10 bisha January wargeysku isagoo maqaalkaasi ka faaloonayana waxa uu qormadan ku bilaabay barta Twitterka ayaa diiday inuu xayiraad saaro xisaabaadka ay leeyihiin hogaamiyayaasha caalamka kuwaasi oo qoraaladoodu ay kiciyaan doodo. Twitterka ayaa laga codsaday inuu xayiraad saaro ama uu xiro bogga uu ku leeyahay Twitterka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Shirkadda Twitterka ayaa boggeeda qoraal ay soo dhigtay waxa ay ku sheegtay in shirkaddu ay ujeedadeedu tahay in ay u adeegto wada hadallada caalamiga ah iyo kuwa guud ayna bogaadinayso cid kasta oo wax ku qorta barta Twitterka horana ay u soconayso. Shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in aanay tiri doonin qoraalada hogaamiyayaasha dunida ee la doortay. hadalka shirkadda ayaa imanaya kadib markii Trump uu ku qoray bartiisa hadal dood dhaliyay kuna saabsan waddanka Kuuriyada Waqooyi isagoo u hanjabaya waxaana arrintaasi keentay in dad badan ay codsadaan in Trump xayiraad laga saaro bartan ay bulshadu ku wada xidhiidho. wargeysku isagoo maqaalkiisa si wada waxa uu leeyahay toddobaadkii hore ayay ahayd markii Trump uu ku qoray bartiisa Twitterka waxaana uu yiri hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu yiri bottomka nuclearka waxa uu yaala xafiiskayga waxa uu intaasi ku daray Donald Trump miyaanu u sheegin mid kamid ah mas'uuliyiinta maamulkiisa tacbaanka ah ee gaajaysan in aan anigu haysto bottomka nuclearka uuna ka weyn yahay kana xoog badan yahay bottomkiisa. shirkadda Twitterka ayaa hoosta ka xariiqday in hogaamiyaha hadii laga xidho amaba laga xanibo barta Twitterka amaba laga tirtirabo qoraaladiisa ay kicinayso doodo xasaasiya waxa qarsoomaya xogaha muhiimka ah ee ay ahayd in loo bandhigo dadka si ay uga doodaan ugana aragti dhiibtaan. shirkadda ayaa ku adkaysanaysa in ay u shaqayn doonto si dhexdhexaadnimo ah ayna markasta muhiimadda siinayso danaha dadweynaha. shahaadada doctorate-ka ay seeto marwadii hore ee Zimbabwe oo la hubinayo xubintaadka xiisaha badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. haddaba wargeysku isagoo maqaalkaasi ka faaloonaya waxa uu qormadani ku bilaabay guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkaasi Zimbabwe ayaa ku dhawaaqay in baaritaan rasmi ah ay ku sameynayaan madowga ku xeeran shahaadada doctorate-ka ah
ee ay haysato marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi Zimbabwe Grace Mugabe. Grace oo ahayd shakhsiga ugu awoodda badan dalkaasi Zimbabwe ka hor intii aanu xilka iska casilin odaygeedii madaxweynaha ahaa ee Robert Mugabe bishii 11aad ee 2017 ayaa shahaadadan ka qaadatay jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2014. laakiin waxa markiiba soo baxay warar sheegaya in Marwo Grace aanay si rasmi ah u dhigan jaamacadda isla markaana cilmi-baaristii shahaadadan samaynin. xilligaasi ay marwadu qaadatay shahaadadan ayaa la sheegay in madaxweynaha dalka oo ahaa Robert Mugabe uu sida oo kale ahaa gudoomiyaha sare ee jaamacadda oo ahayd qaranka. wargeyska oo maqaalkaasi sii wada ayaa waxa khadar uu leeyahay gudoomiyaha guddida la dagaalanka musuqmaasuqa mudane Godson Nagney oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay in barayaasha jaamacadda ee qaybta cilmiga bulshadu ay soo codsadeen in baaris buuxda lagu sameeyo shahaadadan kadib markii baaritaan ay ku sameeyeen diiwaanka kaydka jaamacadda ay ka waayeen wax diiwaan iyo dokumenti ah oo muujinaya in Grace Mugabe ay jaamacaddan ardayad ka noqotay. Grace Mugabe ayaa xidigeeda siyaasaddu uu si aad ah u soo muuqday sanadihii u dambeeyay ee dalka Zimbabwe ka hor intii aan odaygeeda lagu qasbin inuu xilka isaga dago. waxa la arkay Grace oo xisbiga iyo dawladaba awood weyn ku dhaxlay isla markaasina u muuqata inay isu diyaarinayso in ay xukunka uga dambayso odaygeeda 93 jirka ahaa. laakiin arintaasi waxa si weyn u diidanaa xisbiga iyo siyaasiyiinta ay saaxiibka ku ahaayeen Mugabe iyo guud ahaanba dadweynaha reer Zimbabwe. waa tay daawadayaal waxaan filayaa qormadaad ka xisaab badan la inaad ka wada hesheen. qormadaasi waxay guniyo gunaanad u ahayd barnaamijkeena wargeysadu waxay qoraan toddobaadkan. waa kamaradii Cabdiweli Samriye editingkii iyo habeyntii isku dubaridkii Jumcaale Cali Ibraahim. barnaamijka sidoo kale waxay kala qayb qaatay Khadar Nuux Yoonis iyo Sakariya Axmed Maxamed. waa aniga Mabruuka Cali tan iyo kulantin dambe barnaamijka xiga hadii Allah awood la galaan ku kulmi doono. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.